qaar ka mid ah youtuberada Soomaalida ayaa waxaa la weydiiyay su'aashani. waa muuqaalkii kugu lacagta badnaa inta aad YouTube isticmaalaysay. Waxaana weydiiyay youtuberka loo yaqaano Huso Bro. Asaga ayaa su'aasha iska bilaabay, wuxuu yiri muuqaalkayga ugu lacagta badnaay ee ebad aan YouTube ka sameeyo waxaa la daawaday 191,000 wuxuuna sameeyay lacag dhan $843. isla su'aashii kale ayuu wuxuu weydiiyay marka youtuberka kale loo yaqaano Cabdalla Jamaal asagana wuxuu ku jawaabay muuqaalkayga ugu lacagta badnaay ee YouTube-ka aan ka sameeyo waxaa la daawaday 507,000 oo views waxaana ka sameeyay ayuu yiri $973. isla su'aashii kale ayaa waxaa la weydiiyay youtuberka Mo Fami ama dadweynaha sidaad u taqaanid asagana wuxuu ku jawaabay muuqaalkayga ugu lacag sameynta badnaay waxaa la daawaday 504,000 oo jeer wuxuuna ka sameeyay $128. intaasi waa inta kaliya Soomaalida ay ka sameeyaan waa in yar oo ka mid ah waxa laga sameeyo YouTube-ka waxaa laga sameyn karaa YouTube-ka millions sida channeladan oo kale MrBeast iyo Graham Stephan. haddaba muuqaalkani maanta waxaan kugu barayaa qaabka aad u samaysan kartid YouTube channel in ka yar 20 minutes daawasho wanaagsan. muuqaalkani waxaan u kala qaadi doonaa ilaa 5 step. aan u gudubno marka stepka koowaad. stepka koowaad waxaan ku samayn doonaa Gmail. haddii aad hore u lahayd Gmail account waad ka gudbi kartaa stepka labaad ayaad u gudbi kartaa. haddii aadan lahaynna waan isla samayn doonaa. okay waxaad taabataa marka calaamadan sign in ka ah wuxuu geynayaa marka halkan waxaad taabataa marka create account markaad taabatid arki kartaa ilaa 3 noocood oo account ah in la samaysan karo. haddaba waxaad samaysataa marka midka ugu horeeyo oo ah marka for myself. okay wuxuu ku keenayaa marka page-kan kadib waxaad samaysaa first name-ka ay geli last name-ka ay geli user-ka aad rabtid inaad ku samaysatid Gmail-kan ayaad gelinaysaa kadibna password-ka ay geli waxaad taabataa next wuxuu keenayaa marka page-kan waxaad gelisaa marka phone number-kaaga kadib waxaad gelisaa dhalashadaada waxaad gelisaa marka gender type-kaaga next taabo asagana kadib wuxuu keenayaa shaashadan waxaad tiraahdaa marka I agree sidaasi ayaa ku samaysatay marka Gmail account. hadda waxaan awoodi karnaa inaan samaysano YouTube channel anagoo ku xireyno marka Gmail-kii aan hore u soo samaysanay. u gudub marka stepka labaad. step 2 marka waxaan ku samayn doonaa inaan create gareyno channel. hatta wata logodan kadib waxaan ku soo baxayo pop-up-kan kadib waxaad sii doorataa marka create a channel. markaad taabatid create a channel okay markuu shaashadan ku soo bandhigo waxaad ka bedeli kartaa marka logada magaca iyo handle. okay logada gadaal ayaan u dhigan doonaa laakiin hadda waxaan sameynaynaa channel name-ka iyo channel handle-ka. channel name-ka maxaa waa magaca oo leeyahay YouTube-kaaga. handle-kana wuxuu yahay waa ID oo barihii dambe ee soo kordhisay YouTube-ka waa dhici karto channel-kaaga channelku magac ah ayaa dhici karo laakiin handle-ka aad isticmaashid ma dhici karto qof kale inuu isticmaalo. waa meesha lagu kala saaro marka channelada isku magaca ah. kadib markaad intaas samaysatid waxaad tiraahdaa create leh. okay wuxuu keenayaa marka page-kan sidaan waxaad ku samaysatay marka YouTube channel. aan u gudubno marka stepka saddexaad waxaan ku samayn doonaa customize channel inaan channelka ku qurxino. okay si aad u samaysid waxaad taabataa button-kan taabo ay ku qoran tahay customize channel kadib wuxuu ku keenayaa marka YouTube Studio. waa maxay YouTube Studio? waa meesha ay ka maamulaan dadka channelska iska leh channelkooda. haddeetan waxaan ka joognaa marka customize page. waxaan ka samayn karnaa ilaa 3 shay. waa layout-ka inaan wax ka bedelno branding-ka iyo basic info inaan wax ka bedelno. intaas ayaan ka samayn doonaa. tusaale ahaan layout-ka aan ka bilaawno marka ugu horeyso. layout-ka waa page-kani waxaa ka bedeli kartaa ilaa intaan shay. layout-ka kale wuxuu xooga saaraa ama oo ka hadlaa asaga dhan waxa home page-kaaga ka soo muuqdo mar walba ayaa halkan laga saxaa. okay sida trailer-ka video-ga ahaa oo qofka markuu channel-kaaga ku soo dhufto soo baxay iyo playlist-yadii video-gaas ka hooseeyay markii home-ka la joogo sida loo order gareyn lahaa oo kale waxyaabahaas ayaa halkan laga sameeyaa. marka waxaan u gudbaynaa marka branding page-ka waxaad ka samayn kartaa inaad soo gagishatid logooyinka iyo waxyaabihii aad u baahneed channel-kaaga inaad u isticmaashid sida logadii banner-ka iyo waxa loo yaqaano marka watermark. intaba waa soo gelinaynaa. aniga marka waxaan isticmaalayaa channel-kayga Caaqil Taj waxyaabaha oo lahay ayaan isticmaalayaa badanaa. okay adiga waxaa laga rabaa
adigoo raacaya marka requirementskan inaad u diyaarsatid marka sawiro aad meelahan aad gashatid. Okay, hadda marka saddexdooda ayaa soo upload gareynaya. Watermark ayaan ka hadlayaa wax yar. Watermark wuxuu ka soo muuqdaa horta qaybta midig ee hoose ee videoga markii la fiirsanayo. Saddex qaabood ayaa loo soo muujiyaa inuu videoga dhan ka soo muuqdo, inuu dhammaadka videoga oo ka soo muuqdo kale, iyo wuxuu ka soo muuqan karaa marka waqti cayiman oo adiga aasiis. Aniga hadda markuu bilaado videoga sekema kadib ha bilaado la yahaadirtaan. Okay, waxaan u gudbaynaa marka basic info. Basic info waxaad ka bedelaysaa marka magac ayaad ka bedeli kartaa, handle-kii ayaad sii bedelan kartaa. Markii magaca iyo handle-ka aad bedelaysid marka YouTube-ku wuxuu leeyahay sharci ayuu leeyahay. Sharcigaas oo ah marka 14 maalinba inaad bedeli kartid 2 mar channel-kaaga magaciisa. Okay, waxaan ku soo darayaa marka description-ka. Description-kana waxaa ka keenayaa marka channel-kayga. Okay, waan ku bast gareeyay. Halkan hoos marka waxaad soo geli kartaa platformyada kale oo aad leedahay sida YouTube kale haddaad leedahay oo kale, Facebook page haddaad leedahay oo kale, iyo website haddaad leedahayna meesha ayaad soo geli kartaa. Okay, waxaan u gudbaynaa marka halkan ay ku qoran tahay links on banner. Links on banner muxuu yahay? Isaga wuxuu sheegayaa marka inta linki oo aad u baahan tahay in lagaaga soo muujiyo marka bannerkaaga iyadoo la tagin about-kaaga ayaa waxaa la arki karaa marka qaar ka mid ah linkiyada. Tusaale ahaan dhowr hadda waxaan soo geliyo kala 2 linki ayaa soo geliyay. Labada linkiba waxaa leeyahay aligaaga soo muujiyo marka bannerka. Hadduu linkiyadaada badan yihiin ilaa 5 ayuu ugu leeyahay ugu badnaan. Okay, intaas markaad samaysid waxaad taabataa publish. Mar walba ha iloobin marka inaad publish aad tiraahdo. Okay, waxaad taabataa marka preview. waxaad arki kartaa hadirtaan waxyaabihii aan bedelnay, loogadii waa soo gashay, bannerku waa imaaday. Waxaa kaloo imaaday marka labada linki oo aan dhahnay bannerka noogala muujiyo ayaan arki karnaa hadirtaan. Okay, sidaas ayaan waxaan ku dhameynaa marka stepka 3. Waxaan u gudbaynaa marka step 4. Stepka 4 waxaan ku sameyn doonaa inaan wax ka bedelno marka setting. Aan u laabana marka YouTube Studioga, kadib waxaad taabataa setting. Okay, halkan wuxuu ka tusayaa marka lacagta aad isticmaalaysid. waxaad taabataa markay meeshay ku qoran tahay channelka markaad soo gashid 3 page midkood ayaa tagi kartaa. Mid waa basic info, mid waa advanced setting, midka kalena waxaa loo yaqaanaa feature eligibility. Okay, feature eligibility-ga ayaan ka bilaabaynaa. Wuxuu leeyahay marka 3 qodob. qodobka koowaad waxaa la dhahaa standard features, qodobka labaad waxaa la dhahaa intermediate features, midka saddexaadna waxaa la dhahaa advanced features. Okay, kuwa calaamada cagaarka ku saaran ama enabled oo cagaar ay kugu qoran tahay waxaa loo yaqaanaa waxa lagu ogol yahay oo aad sameyn kartid. kuwa calaamada eligible oo madowga ay ku saaran tahay waxa waaye waxyaabaha aan lagu ogolayn. Okay, midka koowaad asaga ayaa na siiyo cagaar ayay noo tahadirtaan. midka labaad haddaan tagno hadda waxaa naga xiran marka inaan soo upload garay karin video ka dheer 15 minutes, inaan custom thumbnail aan soo dhigi karin ayaa naga xiran. waxaa kaloo naga xiran inaan live stream soo galno. si macnaha marka saddexdaasi qodob na loo ogolaado waxaan u baahannahay marka inaan soo gelino telephone numberkeena. Okay, calaamadan buttonka buluuga taabo marka halkan ayuu ku keenayaa. Marka waxaad doorataa wadankaaga iyo telephone numberkaagana soo geli. kadib waxaad tiraahdaa marka get code, kadib wuxuu ku soo dirayaa marka code ayuu ku soo dirayaa oo wuxuu ku soo dirayaa telefonkaaga. Okay, code-ka markaa gelisid waxaad tiraahdaa marka submit. Okay, sidaasi marka waxaa enable inoo noqon doona marka intermediate features oo ahaa 3 shay. Numberka 3aadna waxaa ku qoran advanced features. Advanced features marka anaga inaan wax sameyno hadartaan kuma xiran, laakiin waxay ku xiran tahay channelkaaga. mar walba oo aad sameysid marka waxyaabaha inta kugu qoran wuxuu saarayaa marka calaamad tick ayuu saarayaa, si automatic ayuu wuxuu kugu noqonayaa marka mid enable ah. aan u gudubno marka advanced setting. advanced setting-ka waxaan ka bedelaynaa marka sharcigan oo ah inaan sheegno channelka waxa aan soo dhigayno waxa uu yahay. hadduu yahay muuqaal aan ugu talagalin caruurta, waxaan leenahay channelkeena caruurta ayaa loogu talagalay. aan dhihi karnaa maya ma loogu talagalin caruur iyo wax ku saabsan. Okay, midka kalena waxaan sameyn karnaa annaga ayaan dib ka dooran doono oo videoyaasha aan channelkan soo dhigayno kale waxay iskugu jiraan kuwa caruur ah iyo kuwa kale. mar walba marka haddii qaybta hoose aad dooratid, mar walba waxaad ku khasban tahay aad video soo upload gareynaysid inaad dooratid videoga caruur miyuu ku saabsan yahay mise ma ku saabsan, ayaad kala dooranaysaa mar walba. annaga marka waxaan dooranaynaa qaybta dhexda oo ah caruur looguma talagalin channelkeena.
okay waxaad soo gudubtaa marka hadirtaan basic info waxaad doortaa marka wadanka wadamada halkan aad ka heli kartid waxay tahay wadamada loo ogol yahay marka AdSense Soomaaliya kale ayaad joogtaa oo kale ma loo ogol AdSense ma ka arki kartid halkan iska doorataa marka wadamada dariska mid kamid ah okay qaybta ku xigta waxay tahay keywords kan muxuu ka saacidayaa muxuu yahay keywords kani wuxuu sheegayaa ama uu fahmi karaa category-ga oo channel-kaaga ku jiro ama mawduucyada oo ka hadlo channel-kaaga ayaa qaar kamid ah taageeda loo isticmaala ayaa halkaas lagu qoraa okay marka aad ku qortid marka waxaad tiraahdaa marka save dhaho okay sidaasi waxaan ku dhameynay marka step-ka 4 aan u gudubno marka step-ka 5 ahna step-ka ugu dambeeya ee muuqaalkeena waxaan sameyn doonaa inaan soo upload gareeno muuqaalkeena ugu horeeya channelkan okay si aad u soo upload gareysid waxaad u baahan tahay marka inaad taabatid labadan icon midkooda okay markaad taabatid muuqaalka marka drag waa ku soo dhigi kartaa ama waxaad sameyn kartaa inaad button-kan taabatid okay muuqaalka soo select gareyso halkan ayuu ku keenayaa markaas okay waxaad ka bedeli kartaa marka title-ka waxaadna u sameyn kartaa description aniga hadeertaan oo kale waxaan ka bedelayaa marka title-ka markaad ka bedeshid waxaan ku soo dareynaa marka thumbnail waxaad taabanaysaa marka halkan okay hadeertaani waxaan ka bedelay marka thumbnail-kii oo lahaa marka videogan okay waxaan taabanayaa marka haddii aad rabtid marka inaad tag iyo waxyaabahaas aad ku soo dartid muuqaalkani halkan ayaa sii taabanaysaa tagska ayaa ku soo daraysaa marka muuqaalkan ku saabsan okay next haddaan dhaho okay waxaad sii tiraahdaa marka next kale okay next sii dhaho halkan markaad imaadid waxaad ka dhigi kartaa videoga mid private ah mid public ah mid schedule ah oo waqti aad cayiman ama waqti hebel ii soo dhig ayaad dhigi kartaa oo halkan ayaad taaban kartaa aniga marka waxaan leenahay marka public inooga dhig videogan sida loo arko waxaan leenahay marka publish okay sidaasi ayaa waxaan ku sameynay YouTube channelkeena ugu horeeyay waxaana soo dhignay muuqaalkeena koowaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh